Assalaamu calaykum. Software engineering waa laan ka mid ah injineeriyadda oo qaabilsan naqshadeynta iyo horumarinta softwareada, waxayna xoogga saartaa kuliyadan programming language, shabakadaha kombiyuutarada iyo coding. Shaqooyinka uu qaban karo qofka bartay software engineering waxaa ka mid ah information security analyst. Qaybtan waxay qaabilsan tahay ilaalinta macluumaadka ku kaydsan kombiyuutarka iyo shabakadaha, waxayna ka ilaaliyaan jabsashada ama in lagu soo xadgudbo ayagoo adeegsanaya software sida firewalls iyo data encryption programs si loo ilaaliyo macluumaadka xasaasiga ah. Qofka bartay software engineering wuxuu u shaqayn karaa web developer ahaan oo ah inuu sameeyo website-yada, wuxuuna mas'uul ka yahay web developer-ka coding, naqshadeynta iyo qaabeynta website-yada. Qofka ku takhasusay xirfadan waa inuu si fiican u yaqaanaa HTML, CSS, JavaScript iyo PHP iyo luqadaha kale ee la xiriira web design coding. Qofka bartay kuliyadan waxaa u furan xulashooyin badan dhinaca fursadaha shaqada. Wuxuu noqon karaa khabiir ku xeel dheer application development oo ah sameynta applicationada ku shaqeeya mobilada iyo kombiyuutarada. Application developer waa qofka sameeya applicationka aad hadda iga daawanayso YouTube. Software engineerska waxay ka shaqeeyaan warshadaha ka hawlgala tiknoolajiyadda, warshadaha baabuurta, daryeelka caafimaadka, warshadaha soo saara droneska iyo waax dawladeed. Sidoo kale, qofka bartay software engineering wuxuu u shaqayn karaa shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyadda sida Google, Facebook, Amazon iyo kuwa kale badan. Qofka bartay software engineering wuxuu aqoon durugsan u leeyahay luqadaha programming-ka, horumarinta softwareada iyo nidaamyada uu ku shaqeeyo kombiyuutarka, waxayna sameeyaan software ayagoo ku dabaqaya mabaadi'da injineeriyadda. Markasta oo aad booqato website ama aad isticmaasho app ku shaqeeya internetka sida Facebook, waxaad isticmaalaysaa natiijada shaqada uu qabtay qof software engineer ah. Software engineering waa kuliyad aad u fiican, waana mid ka mid ah xirfadaha aadka loogu baahan yahay dunida, maadaama isbedelada internetka ay xawaare ku socdaan. In badan oo naga mid ahna ay ku tiirsan yihiin aaladaha smartiga. Shaqooyinka kuliyadan waxaa la rajaynayaa inay kor u kacdo oo ay ziyaado 24% 8 sano ee soo socota. Baahida suuqa ka jirta awgeed ma aha wax la yaab ah in dadka bartay kuliyadan ay ku shaqeeyaan mushaar aad u sareeya. Kuliyadan waxay ku jirtaa kuliyadaha ugu mushaarka badan, inkastoo ay ku xiran tahay dalka aad joogto. Tusaale ahaan, haddaad Mareykanka aad ku nooshahay, mushaarka dhexdhexaadka ah ee software engineerska waa $100,000 sanadkii. Haddii aad ka shaqaynayso sida Google, Microsoft, Netflix, way ka sii badan tahay mushaar ahaan. Qofkii raba inuu barto kuliyadan waa inuu yahay qof dulqaad badan. Waxaa sugaya inuu saacado badan uu horfadhiyo kombiyuutarka. Dadka ku shaqeeya software engineer ahaan waxay shaqeeyaan celcelis ahaan 8 saac iyo 30 daqiiqo maalin walba. Sidoo kale, qofka raba inuu xirfad ahaan ugu shaqeeyo software engineering waa inuu yahay qof dadka la shaqeeya caawiya iyo inuu waxbarasho joogto ah uu sameeyo. Si aad u noqoto software engineer, waxaad u baahan tahay ugu yaraan haysashada shahaado bachelor ama shahaadada mid ka mid ah kuliyadahan sida computer science, IT, software engineering ama kuliyadaha kale ee la xiriira. Jaamacadaha ugu fiican ee bixiya software engineering waxaa ka mid ah Jaamacadda Stanford, Jaamacadda Harvard iyo Jaamacadda California. Sidoo kale, shirkadaha ugu fiican uu u shaqayn karo qofka bartay kuliyadda software engineering waxaa ka mid ah Google, Facebook, Amazon, Apple, Netflix iyo kuwa kale badan.